munaasabadana soo qabanqaabiyeen qaar ka tirsan dhalinyarada ku dhaqan degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir ayaa maanta waxaa lagu qabtay magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliya. munaasabadan ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya, ururka haweenka qaranka Soomaaliya, ururka dhalinyarada gobolka Banaadir, odayaal, aqoon-yahano, culimadiin iyo qaar ka tirsan bulshada ku dhaqan degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir. dhammaan mas'uuliyiinta ka soo qayb galay munaasabadan lagu qabtay degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir ayaa u mahad celiyay dhalinyaradii barnaamijkan soo qabanqaabiyay iyo sida isku xilqaameen in ay wax baraan qaar ka tirsan dhalinta Soomaaliyeed. ugu horeyntii waxaa munaasabada ka hadashay gudoomiye ku-xigeenka ururka qaranka Soomaaliyeed maamacaan iyaduna u mahad celisay dhalinyaradan maanta barnaamijkan soo qabanqaabiyay. waxbarashadu waa waxa kaliya ee ummadda tan samata bixin karta. markii aynu wareeray wadankeena dhibaatadu ka dhacday, iscaydsanay, isqalanay, dawladeena duminay, dadkii isku kacay, familkii qoysku qoys raas baraas Soomaaliya ay sulaysay. waxa inta dhacayay waxayna shaqo ku lahayn oo ahayd cadaalad darro iyo xaq darro ummadii ay u dhaqaaqday oo ay ka leexatay wixii Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu dirsaday ama uu abuurtay oo ahayd in Ilaahay adeecaan iyo rasuulkiisa sallallahu alayhi wasallam. waxaynu galay shaqooyin ayna shaqo ku lahayn, waxaynu galay casri cusub iyo dhaqan gaalo, waxaynu maray warda khaldan waana laga faa'iideystay. marka waxaan qabaa dhalinyaradan barnaamijkan wada inay yihiin dhalinyaro inta wadanka dhibaatadu ka dhacday ku dhalatay ama ku kortay waxna ku baratay. haddii aad ku fikirteen inaad samaysaan ururo aad kaga hadlaysaan jahliga, gaajada, faqriga, dib u heshiisiinta, waxa kaliya aan rabo inaan idinku daro ururkan oo ah inaad ku kordhisaan wada hadal, bulshadu inay wada hadasho, dhalinyarada loo sameeyo wacyigelin, baraarujin lagu baraarujinayo dalkooda iyo dadkooda iyo diintooda. walaalka nabadgeli adna aad nabadgeshide, walaasha nabadgeli walaashaha nabadgeshee. waxaa inagu dhacay muddo dheer. anigu in badan waxaan ka shaqaynay dalka Soomaaliya kama bixin, Muqdisho iyo waxaan u dhaxeeyay Kismaayo. intaana waxaan isugu yeedhay Soomaali oo laha Soomaaliya isu kaala. waxaad tihiin hal qoys, waxaad tihiin hal family, waxaad tihiin rixin iyo dad islaam ah oo muslim ah oo boqolkiiba boqol islaam ah oo geeska Afrika Ilaahay ku beeray oo Soomaali magacooda la yiraahdo. run ahaantii markaan arko dhalinyaro meel kasta oo la igu sheego dhalinyaro wax ku qabsanayso inaan u imaadaan jecla, inaan waxa ay wadaan aan la xoojiyo jecla. waxaan u baahannahay waxaa jiri jirtay ragga dadka weyn oo oran jiray intaynaan wax baran ama aynaan siyaasadda fahmin waxaad tihiin madaxda berrito, laakiin maanta madaxdii maanta tihiin. mar dambe laydinma odhan karo madaxda berrito, waxaad tihiin madaxdii maanta. sidoo kale waxaa munaasabada ka hadlay gudoomiyaha dhalinyaradan barnaamijka soo qabanqaabiyay Xasan Cismaan Cumar, asagoona sheegay in ururkoodu la magac baxay SAD lana aasaasay sanadii 2014 inta uu dhisnaana waxyaalo badan ay u qabsoomeen oo ay qayb ka tahay in ay wax baraan dhalin Soomaaliyeed oo ku sugan magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliya iyo qaar ka tirsan gobolada wadanka Soomaaliya. salaan kadib waxaan jeclaa inaan wax yar meeshan ka sheego. maanta waxaan aad ugu faraxsanahay inaan hortiina soo istaago anagoo u hadli doono magaca ururka SAD. ururka SAD waa urur weyn, waa urur xambaarsan magac Soomaaliyeed. haddii aan sharaxadeedii kaga koobo, ururka SAD waxaa la dhahaa Somali Association for Aid and Development. waa urur marka la soo gaabiyo magaciisu uu yahay SAD. esta waxaa laga soo gaabiyey sida arki kartaan Soomaaliya. eeda waxaa laga soo gaabiyey Association. eeda kale waxaa laga soo gaabiyey Aid. dhidan waxaa laga soo gaabiyey Development. Development and Aid waa gaar kartiin, waa gargaar iyo horumarin. gargaar iyo horumarin waxaa soo hoosgala waxyaabo fara badan oo ay ka mid yihiin sida waxbarashada, caafimaadka, deegaanadan ku teedsan gobolka Banaadir iyo nawaaxigiisa. ururka SAD sanadkan ayuu jiray. haddii aan wax ka taabto waxqabadkiisii saa arkaysaan, ururka SAD wuxuu sanadkan ka soo shaqeeyey 3 gobol oo ka tirsan Soomaaliya. 3 gobol oo ah 2 gobol oo shabeellooyinka oo Muqdisho xirfadeeda ku yaalo iyo gobolka Banaadir. sanadka dambe haddii Ilaahay yiraahdo noolna waxaan jecelnahay inaan gaarno 18 gobol oo Soomaaliya ka wada shaqeyno haddii Ilaahay yiraahdo. sida arkaysaan ururka SAD waa urur Soomaaliyeed, ma ahan urur ama xisbi siyaasadeed.
ururkan la magac baxay saad oo ay ku mideysan yihiin qaar ka tirsan dhalinyarada ku dhaqan magaalada muqdisho caasimada Soomaaliya ayaa qayb ka ururada siyaasadeed iyo kuwa waxbarasho ee ka jira gudaha magaalada muqdisho caasimada Soomaaliya waxna lagu qabanayo bulshada Soomaaliyeed.